haddaad ku dhawaato inaad isdhiibto isweydii su'aasha ah sabab maan u bilaabay marka hore haddaad ku dhawaato inaad isdhiibto xasuuso markaad bilaabaysay inaad rajooyin waaweyn lahayd haddaad ku dhawaato inaad isdhiibto xasuuso kuwii kugu qoslayay ee kulaha ma gaaraysid haddaad ku dhawaato inaad isdhiibto xasuuso markaad bilaabaysay inaad rabto haddaanay hadda cidna ku aaminayn waxaad rabto inaad gaadho adigu keligaa is aamin xataa haddaanan hadda arkayn natiijo fiican xataa haddaanan muddo dheer faa'iido fiican arkahayn waxaan u malaynayaa inaad isweydiin doonto markaad muddo wax wado natiijo fiican aad helin maxaa dhici doona haddaan natiijo fiican waayo laakiin waxaad ogaataa natiijo fiican waxaad helayn markaad isdhiibto weligaa natiijo fiican heli maysid weligaa ha isdhiibin waxaad dareemaysaa daal haddana ha isdhiibin way igu adagtaad leedahay haddana ha isdhiibin ma karaayaad leedahay haddana adigu waxaad tahay qofkii u dagaalami lahaa hamigiisa adigu waxaad tahay qofkii meeluhu ka jilicsan lahaa dhisi lahaa siduu u gaadhay hamigiisa adigu waxaad tahay qofkii u dagaalami lahaa wuxuu rabo waxaasuunu qof kale weligii gaadhin adigu waxaad tahay qofkii aan maqlayn markii naftiisu leedahay anigu ma karaayo adigu waxaad tahay qofkii naftiisa ugu jawaabi lahaa aamus anigu weli ma gaadhin hamigayga waanan gaadhaya halkan rabo fahankeenna oo indhisnaa wuxuu ka adag yahay jirhkeenna haddaad fahankaaga brogaraamiso inaad waxaad rabto weli ku socon karto inaad fikirkaaga xadaysan xadkiisa ka tallaabi karto intay dadku kaa sugayeen in ka badanna aad keeni karto maalinunbay naftaadu aqbali doontaa inaad ahayn qofkii ku moodaysay inaad ahayn kii cabsanayay inaad ahayn kii hawlihiisa dib u dhigayay inaad ahayn kii isdhiibayay waana kula kori doontaa nafteenu waa doqon raaxo jecel laakiin markay ku aragto inaad tahay qof adag hoggaankan u haya oo laylinaya ayadaa ku aqbali doonta kulana socon doonta sidaa tahay waddada guusha ma yeelan waxay cascaso lagu soo dhaweynayo waxaad la kulmi doontaa maalmo adag laakiin sii qaado waxay ku noqon doonaan xanuunkii ku sii adkeynayay waad dhici doontaa intaad ku sii jirto jidka guusha waana lagugu qosli doonaa laakiin waxba kaama gelin keliya waxaa diwaankii kuu geli doonaa inaad kacday horena u sii socotay guusha keliya kuma gaari kartid markaad faraxsan tahay ee nolosha kuu fiican tahay ku iftiimayso guushu waxay ka bilaabantaa nolol adag oo madow adigana leerka u shidi kara haddaanad isdhiibin sababtoo ah waxaad haysataa maabkii aad ku socon lahayd kaasoo ah inaad maalin madow maalin fiican maalin farxada iyo maalin murugaba la kulmi doonto mana isdhiibaysid sababtoo ah waxaad rabtaa inaad ogaato qofkaad dhab ahaan tahay mana isdhiibaysid sababtoo ah waxaad rabtaa inaad caddayso inaad tahay qof guulaysta ah sababta kale isku dhiiban baa waxay tahay markay hooyadaa ku dhalaysay way ku tirsanaysay waxaanay rajaynaysay inaad tahay kii nolosheeda bedeli lahaa amba tii nolosheeda bedeli lahaa isma dhiibaysid waayo waxaad tahay qof qiimale u qalmo inuu guul gaadho xaqiiqada jirtaa waxay tahay dadka intooda badan way riyoodaan mana rumeeyaan ee waxay ka doorbidaan inay ku noolaadaan riyadooda waa taqaanaa sida loo riyoodo baro sida loo rumeeyo waxba kaama gelin dadku waxay ku leeyihiin sababtoo adigu waxaad tahay qof ka duwan adigu waxaad tahay qof aan weligii isdhiibahayn oo rajo dhigahayn adigu waxaad tahay qofka aan ogolaanahayn inay dadku hoos u dhigaan oo ay yasaan adigu waxaad tahay qofkii riyoon lahaa riyadiisana rumayn waan fahmi karaa dadka qaran ay ku jiraan nolol adag laga yaabaa inaad u dagaalameyso nolol maalmeedkaaga laga yaabaa inaad u dagaalameyso halkaad maanta wax ka cuntaa laga yaabaa inaad u dagaalamayso qoyskaaga laga yaabaa inaad u dagaalamayso mustaqbalkaaga laga yaabaa qaar inaga mida inay u dagaalamayaan noloshooda laakiin adigu waxaad tahay kii aan weligii isdhiibahayn waxaan ogahay nolosha inay marmar aad u adag tahay laakiin haddaad u adkaysato horena u socoto waxaan hubaa inaad gaari doonto halkaad doonaysay ood kuna nasan doonto anigu waxaan ku dhihi lahaa weligaa ha isdhiibin waxaan arkaa rajo aad u fog oo hirkaa xigo aan si fiicanna loo arkayn mana garanayo hirkaa muuqda sidaan ku gaari lahaa waxaan kaloo arkaa marmarsiyo aad u badan sida aqoontaa ma lihi heerkaa ma gaadhin afrikan ku noolahay iyo marmarsiyo kaloo badan laakiin anigu ma aqbalayo waxaas ee waxaan ahay kii hore u socda biyaysa caagadaada saad dhexda ku sii haraadin taasna ka dhigo cibaado alleh iyo alla ka cabsi akhri bugaag badan intaad dhexda kusii jirto saad u caajisin insha allah waxaan hubaa inaad guul gaari doonto wax ka adiga ma jiro fahankeena haddaan tusaale kuu soo qaato markaad iskuulka hoose ku jirtay waxaa lagu dhigay 10 ku dhufo 10 kadib jawaabta waxaa lagu yiri waa 100 maanta 10 sano kadib haddii lagu weydiiyo 10 ku dhufo 10 waa maxay waxaad odhanaysaa 100 sababtaad ku garanaysaana waxa weeyaan maad qaybin laakiin waad fahantay sida la iskugu dhufanayo fahankeena wax ka adiga ma jirto
inaad fahanto wadada guushana wax ka fiican ha istiibin marka hamigaagu uu kuu soo dhawaanaya ha istiibin marka riyadaada run bay kuu noqonaysaa kac oo ha ogolana cidna inay hoos kuu dhigto weligaana ha istiibin